saaxiib soo dhawow kanaalka horumarkiisa adiga ayuu xilka saaran yahay share garee like ta saar subscribe kuna waa dhankaaga ama kaag wax walba ka filo kubadda cagta si ahaanba dhacdada ugu weyn kubadda cagta ka socota dalka Qatar natiijada ciyaarada ay sanado badan taariikhdu xusi doonta ayaa ka dhacday dalka Qatar halkaas uu ka socdo koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 dalka Saudi Arabia ayaa guul taariikhi ah ka gaaray dalka Argentina oo iskugu hor yimaadeen ciyaar ka tirsan Group C iyagoo kaga adkaaday 2-1 ma jirto cid filaysa in Sacuudigu ka adkaan doono Argentina iyo Lionel Messi oo dad badan ay u arkaan ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa abid ee ciyaara kubadda cagta taa beddelkeeda waxa su'aal ay ka taagnayd imise gool ayaa laga dhalin doonaa Sacuudiga daqiiqadii 10aad ee ciyaarta waxa durbaba xisaabta dhalinta bilaabay Argentina oo Lionel Messi u dhaliyay rigore waxaana kadib filashadu ay ahayd imise gool ayaa Argentina raacsan doonta Argentina kadib waxay dhaliyeen 3 gool oo dhamaantood la diiday sabab la xiriira waxay ahaayeen garabka dhaaf ama offside waxaana qaybtii hore ciyaarta ay ku kala nasteen hal iyo eber ay Argentina ku hogaaminayso ciyaarta waa dhacdooyinka laga baranayo koobka adduunka qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa dunida waxay aragtay wax maalmo toddobaadyo bilo iyo sanado badan laga sheekayn doono Saudi Arabia ayaa dhalisay 2 gool oo degdeg ah daqiiqadii 49aad iyo 53aad taasoo dunidoo dhan ku noqotay fajac Argentina iyo xulkii miisaanka weynaa ee koobkan looga baqayayna ay ku noqotay lama qaadan waa iyo amakaag xulka qaranka Argentina oo hogaaminaya Lionel Andres Messi ayaa bilaabay weerar badan balse Sacuudiga ayaa si qurux badan u difaacday waxaanu kabtan Messi iyo kooxdiisa ay ku adkaatay inay mar labaad taabtaan shabaqa oo ay dhaafiyaan goolhaya Maxamed oo Sacuudiga goolkiisa wardiye ka ahaa 90kii daqiiqo iyo miradii badnaa ee lagu daray Argentina waxay kubadda haysatay inta badan ciyaarta ama 69% halka Sacuudigu isna haystay kaliya 30% balse wax weyn taas ciyaarta kama bedelin Sacuudigu waxay gaareen guul taariikhi ah Argentina waxay calaamad su'aal weyn saareen haddii ay sax ahayd saadaashii dad badan ahayd inay sanadkan hanan doonaan mundiyaalka dunida ee lagu ciyaarayo Qatar taa macnaheedu waa taariikhda cusub ee laga baranayo koobka adduunka ee dalka Qatar ka socda ee 32 wadan ay ka qayb galayaan